munaasabad shahaadooyin sharafeed lagu guddoonsiiyay ardayda ugu sarsareysa imtixaanaadka shahaadiga fasalada 8aad dugsiyada dhexe iyo afraad ee dugsiyada sare ee gobolka Sanaag oo lagu qabtay xarunta wasaaradda waxbarashada ee magaalada Ceerigaabo ayna ka soo qayb galeen mas'uuliyiinta xukuumadda heer gobol iyo degmada madaxda waxbarashada iyo maamulayaasha dugsiyada kala duwan ardayda mas'uuliyiinta jaamacadaha culimaaddin aqoon-yahano waalidiin madax dhaqameed iyo marti sharaf kale ayaa waxa ugu horeyn halkaasi faahfaahin kooban oo ku saabsan ujeedada munaasabaddan la isugu yimid ka jeediyay Maxamed Jaamac Faarax oo maamulaha dugsiga sare Xaaji Aadan Secondary School oo ah kan ugu heer aqooneed sareeyay ardayda gobolka Sanaag ee dhameysatay dugsiyada sare ee sanadkan. xafladan maanta waxay ku saabsan tahay maamuusida ardaydii ka qalin jabisay degmada Ceerigaabo ardayda ka baxday dugsiga sare Xaaji Aadan oo kaalinta afraad ee dalka Soomaaliland ka gashay taasoo aan hore u dhicin intii sanadood ee dalka dib lagu soo noqday runtii may dhici jirin lamana maqal waana taariikh cusub oo maanta bilaabantay inay maanta galaan recordka semi-finalka waxa loo yaqaan ay keeneen dalka gobolkana ay ka galeen kaalinta koobaad dugsiga Xaaji Aadan waxa ka baxay 209 arday 205 arday oo kamid ah waxay ku baxeen darajada A iyo B runtii ardaydaas xusud way mudan yihiin amaana way mudan yihiin sababtoo ah waxay sumcadda ay u soo jiideen iyo karaamada gobolka degmada iyo iskuulka intaba aad iyo aad xubno isugu jiray maamulayaasha dugsiyada Ceerigaabo waalidiinta culimaaddinka iyo madax dhaqameedyada oo iyaguna halkaasi ka hadlaya dhammaan ardaydana heerkoodu sareeyay halka ka hambaliyay ugana soo jeediyay hadallo waano iyo dhiirigelin bay isugu jiray sidoo kalena macallimiintii ardaydan wax soo bartay halka uga mahad celiyay waxayna guud ahaan gudoomiyaha waxbarashada gobolka Sanaag ku ammaaneen in sanadahan ugu dambeeyay ay kor u sii kacaysay aqoonta waxbarashada ardayda dugsiyada qaybahooda kala duwan taasina tahay midda sababtay guusha maanta halkan la isugu yimid waxa isaguna halkaasi ka hadlay madaxweynaha jaamacadda Sanaag University Cali Cabdi Urre kaasoo ku xog waramay dib u habeynta lagu sameeyay jaamacaddan ardayda dugsiyada sare dhameysteen ku booriyay inay aqoontooda jaamacadda ka raadsadaan jaamacadda Sanaag University anu waxaan leeyahay macallimiinta imaka halkan ka hadlaysay ee taagani ama dugsi hoose ha ahaateen ama dugsi dhexe ha ahaateen ama dugsi sare ha ahaateen wallahi inaan macallimiin ka wanaagsan jirin waxaan idin leeyahay aamina halkan ana idin fiican waliba sidoo wasaaradda waxbarashada gobolka Sanaag ani Saalax Xaaji Xasan oo in badan ka waramay heerarkii iyo marxaladii aad ka waxbarashada gobolka Sanaag soo martay ayaa isagana wax hadaladiisa ka mid ahaa inta aan waayadka ugu dabaaldegeena waa tahay akashkiina idinku awalba waxaan itiqaadsanahay waxaan xukumaanu kulay 198 maamule waxaan itiqaadsanahay ka ugu wanaagsan inuu yahay Ahmed Touré labada boqol ee maamule ka ugu culayska badan haddana wuxuu xukumaa 45 macallin iyo 12 shaqaale hoosaada iyo 2700 arday waana iskuulka qura anigu nuuxsan mar qura annagu awoodaydu waxa ahayd macallinka xunna inaan ka baydhino meesha ee joogay mid wanaagsanna keenno intii awoodayda waan soo waday barasaabkii maayarka waxaan u sheegnay waxa waxbarashadii Sanaag ka hadlay inaan awoodayda ahayn wax naga awood weyn baa yimaana qaba karin annagu ugu dambeynna maayarka Ceerigaabo Ismaaciil Xaaji Nuur iyo barasaabka gobolka Sanaag Maxamed Cali Salebaan oo munaasabadda soo gabagabiyay ayaa hadalladii ka mid ahaa ardayda 48 ee gobolka ee eega keentayna waxaan idin leenahay kuwa ku xiga iyo kuwa kale ku soo xigana inay eega wada gaari doonaan ayaan ugu ducaynaynaa waxaan rinoo rajaynayaa dhammaanteen guul waxa kaliya halkan ka jeedinaya baaqaan u jeedinayo dadka reer Ceerigaabo ama dadweynaha reer Ceerigaabo iyo ardayda dhameysatay dugsiyada sare kaas oo horena uu sheegay dhinka jaamacadda ama madaxweynaha jaamacadda Ceerigaabo waxaan idinka rajaynayaa in jaamacaddaasi ay gudan doonto waajibkii ay lahayd oo dhan marka sidaa darteed waxaan dadweynaha reer Ceerigaabo ka codsanayaa inay camiraan jaamacadaha gobolka halkii ay meel kale runtii u hanqal taagayeen Abdullaahi Xuseen Darwiish shabakada caalamiga oo weyn news magaalada Ceerigaabo.